بسم الله الرحمن الرحيم وصبح نمت هذا لبي لباتن كبشة أبريل سنة كلبكن لباتن يشن أو كبهجن أفري لباتن كبشة شوال سنة كن أفر بقول أفرتن يلح تاريخ الهجرية كسر وادع مركله يبرامجكي ورشاد ورركا قضبة برامجك ساعة الذي كوهيننا وحا كمدا ومريكنka oo duqimo kale oo culus xalay ku qaaday dalka Yemen saacado oo kadib markii xogaga Xuutiyiinta wacad ay ku mareen in ay beegsan doonaan danaha Mareykanka ee gobolka Bariga Dhexe Turkiga oo boqolaal ciidamada keenay magaalada Muqdisho haddaba waa imisa tirada ciidamadan maxay ka qabanayaan Soomaaliya ma dhaba in ciidankan boqolaalka ay horodhac u yihiin kumanyaal kun oo ciidamo Turkiya oo loo soo diray Soomaaliya xog faahfaahsan diyaaradda soo qaaday meesha ay soo mareen iyo faahfaahin guud ayaan idinkaga haynaa sheekadan ciidamada dawladda Suudaanta Koonfureed oo magaalo istiraatiiji ka qabsaday ciidamada taabacsan madaxweyne ku-xigeenka waddankaasi oo xabsi guri ku jira madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo qalinka ku duugay heshiiska iskaashiga military ee uu la saxiixday madaxweynaha waddankaasi Iiraan wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa ciidamada Israa'iil oo ka cabanaya daal iyo tabar darro iyadoo qaarkoodna ay sheegeen in ay dagaalka ku jireen ku dhawaad hal sano isla Israa'iil hogaamiyaasha mucaaradka ayaa si cad u sheegaya in Netanyahu uu qatar amni ku yahay Israa'iil sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa sheeko yaab leh oo ku saabsan xogayaha amuuraha gudaha ee dalka Mareykanka oo ay qabsatay fadeexad weyn oo amni arrintaasi oo si weyn loo hadalhayo haddaba sidee wax u dhaceen arrin cajiib ah ayaan idinkaga haynaa oo sheekadan qabsatay haweeneydena dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah soo dhawaada markale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waxaana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka sheekada ciidamada Turkiga ee Soomaaliya la keenay iyo arrintan oo faahfaahin aan idinkaga hayno waanu imaan doonaa laakiin saaka waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Yemen colaadda ka aroosan oo laga cabsi qabo inay ka sii darto halay intii la socotay barnaamijka qubanaha waxaan idinkugu soo gudbinay gudoomiyaha golaha siyaasadda ee Xuutiyiinta oo wacd ku maray in ay beegsan doonaan shirkadaha shidaalka ee dalka Mareykanka iyo waliba kuwa hubka arrintaas oo siyaabo kala duwan loo fasirtay loona qaatay Xuutiyiinta in ay qaadi doonaan weeraro haddaba hadalkaasi markuu ka soo yeeray Xuutiga isla xalay Mareykanka ayaa duqeymo culus ka fuliyay waddankaasi Yemen aynu eegno warbixino kala duwan oo ka imaanaya waddankaasi diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa duqeymahan ka fuliyay deegaano kala duwan oo kamid ah magaalooyinka ay gacanta ku hayaan Xuutiyiinta waxaana kamid ah degmada Masjar ee gobolka Marib waxaa sidoo kale la sheegayaa in 25 duqeyn Mareykanka oo ku qaaday fariisimo Xuutiyiinta ay ku leeyihiin deegaanka Al-Vaza ee gobolka Xudayda iyadoo la sheegayo duqeyntu inay socotay tan iyo saakay waa barigii tani waxay dhacday saacado kadib markii Xuutiyiintu ay wacad ku mareen inay qaadi doonaan weeraro sidoo kale waxaa la sheegayaa in duqeymo kale ay ka dhaceen deegaanka Al-Quwayraaq ee ku yaala galbeedka Al-Tuhayta sidoo kale qaraxyo xoogan ayaa gelgelay magaalada caasimadda ah ee Sanca dhankeeda Koonfureed lama sheegin khasaaraha ka dhashay duqeymahan Mareykanku oo ka geystay Yemen saacadihii la soo dhaafay iyadoo wararkuna sheegayaan in xaaladdu ay faraha ka sii baxayso Xuutiyiintuna ay wacad ku marayaan inaysan joojin doonin weerarada ilaa iyo inta Israa'iil ay wado duulaanka Mareykanka Gaza kadana wixii warar ah ee arbahari ku soo kordha intaynu barnaamijka ku jirno amaba barnaamijka wararka maanta ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo
xagga Afrika aynu eegno xiisad iyo dhiilo colaadeed ayaa lagu soo warramayaa inay ka aloosanayd maalmihii la soo dhaafay dalka Suudaanta Koonfureed haddaba wararkii ugu dambeeyay ciidamada Suudaanta Koonfureed ayaa waxay shaaca ka qaadeen in ay gacanta ku dhigeen oo ay qabsadeen magaalo istiraatiiji ah oo ku taal gobolka Niilka Sare taasi oo laga qabsaday bishii March ciidamadan kadib dagaal ay la galeen ciidanka caddaanka ama White Army arrimahaasi oo la xiriira madaxweyne ku-xigeenka koowaad Riek Machar oo haatan xabsi guri ku jira isla markaasna qalalaasaha uu ka sii darayo tan iyo markii la xiray afayeenka ciidamada Suudaanta Koonfureed Lul Rawai Kuonga ayaa war-saxaafadeed oo soo saaray waxa uu ku sheegay in ay dib ula wareegeen magaalada Nasir oo uu ku tilmaamay mid taariikhi ah isagoo xusay inay ka fogaadeen dhagar lala damacsanaa deegaanka Kahluka waxa kale oo uu sheegay inay uga mahad celinayaan dadka deegaanka iyo weliba ciidamo cirka ka caawiyay waxa arrintaasi uu ku daray waxaynu aragnay iyagoo is urursanaya waynu laynay kadibna way kala carareen intii soo hartay ayuu yiri afayeenka kooxda la baxday White Army Hunson Joel James ayaa isna sheegay in ay sameeyeen dib u garasho xeeladaysan isagoo xusay in duqeymaha ka dhacay tuulada Taluka 17 qof oo rayid ah ay ku dhinteen taageerayaasha madaxweyne Salva Kiir ayaa ku eedeynaya ciidamada Riek Machar inay fawdo ka wadeen magaalada Nasir iyagoo kaashanaya kooxaha loo yaqaan White Army kuwaasi oo u badan dagaalyahano ka soo jeeda beesha Nuerka ee uu ka dhashay madaxweyne ku-xigeenka Riek Machar inta ay socotay xiisadan dowladdu waxay xirtay tiro siyaasiyiin iyo saraakiil ciidan ah oo lagu tuhmay inay ku dhow yihiin Machar isaga laftigiisana waxaa la geliyay xabsi guri madaxweyne Salva Kiir iyo Riek Machar ayaa ka wada tirsan dowlad wadaag ah oo dhibaato badan la soo daala dhacaysay tan iyo markii ay gaareen heshiiskii nabadeed 2018 kaasi oo lagu soo afjaray colaad sokeeye oo dad boqolaal ay ku dhinteen xabsiga guri ee lagu hayo Machar ayaa lagu eedeeyay in sababtu ay tahay inuu horinayay kacdoon hubaysan isagoo taageero siinaya kooxda White Army ee gobolka Niilka Sare waxaana walaac xoogan arrintan ka muujinaya beesha caalamka kuwaasi oo ka cabsi qaba in dagaalku dib uga qarxo waddankaasi madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa booqday magaalada Juba bishii horaantii bishan kadib markii halkaasi ciidamo uu u diray ciidankaasi ayaa sugaya ammaanka caasimadda koonfurta waa caasimadda Suudaanta Koonfureed ee magaalada Juba iyadoo sarana loo qaadayo amniga si looga hortago xiisadaha dhanka siyaasadda taliyaha ciidamada Uganda General Muhoozi Kainerugaba oo u dhalay madaxweyne Museveni ayaa isna waxa uu sheegay in ciidankoodu ay dileen ilaa iyo 1500 oo dagaalyahano ka tirsan White Army kuwaasi oo taageerayay ciidamada Machar horaantii bishan xisbiga Machar ee Sudan People's Liberation Movement ama SPLM ayaa u muuqday mid kala jabay iyadoo garab ka mid ah uu ku dhawaaqay in si kumeel gaar ah xilka looga qaaday Machar gaar ahaan hogaaminta xisbiga halka garabka kale ee hubaysan uu sheegay inuu weli daacad u yahay hogaamiyahaasi imikana Moscow madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa qalinka ku duugay oo sharci ka dhigay heshiiska iskaashiga dhanka Iran ay la saxiixdeen wakaaladda wararka ee TASS ee laga leeyahay waddankaasi Ruushka ayaa ku warantay in hindisahan saxiixiisa uu ka dambeeyay kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka waddankaasi ee Duma ay meel marayeen waxaana warbaahinta laga soo xigtay in heshiiskan uu daboolayo iskaashi labada dal ay yeeshaan gaar ahaan dhanka difaaca la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada dhaqaalaha ganacsiga tamarta gaadiidka beeraha iyo weliba dhaqanka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhigiisa Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa heshiiskan kala saxiixday 17 bishii January waa hagaag goordhow waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza gudaha Israa'iil oo la sheegayo in Netanyahu uu qatar ku yahay amniga Israa'iil sheekad la yaab leh oo qabsatay haweeneyda ah xogayaha amuraha gudaha ee dalkaasi Mareykanka sheekadan waa sheeko cajiib ah iyo weliba warbixin ku saabsan ciidamada Turkiga uu geeyay magaalada Muqdisho tiradooda
ciidankan waxa ay qabanayaan ujeedkooda loo geeyay Soomaaliya iyo waliba warbixino kale laakiin intaan u gudbin dhammaan macluumaadkaasi qadar haysiina المصباح إسلاميك أونلاين moogtahay adduunyada meel kastood ku sugan tahay muraadkii waxbarashada axaadiista mudan iyo marisyada quraanka iyo diintii macaaneed muuqaal in lagu dhigo oo maqalku dheer yahay almisbaaxna laga helo adigoon mashaqo iyo meermeerid kala gelin marra waaxid istaagoo moobeelka qaado almisbaax la xiriira almisbaax islaamic online waxaad ugu tegaysaan barashada quraanka iyo culumta diiniga ah oo hab online ah lagu baranayo dugsigu waxa uu qaadanayaa arday cusub oo isugu jirta caruur iyo dad waaweynba maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah xifdiga quraanka kariimka barashada akhriska iyo qoraalka higaada carabiga axaadiista iyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam barashada salaada iyo ducooyinka luqadda carabiga iyo maadooyin kale dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho ama shahaado ka turjumaysa aqoonta aad baratay wixii faahfaahin oo intaa dheer kala xiriir WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda soo dhawaada marka la daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan talaadada toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadana waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo waliba Telegram-ka warbixino qoraal ah faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna waajibayaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka sheekada Turkiga iyo ciidamada uu geeyay Soomaaliya ay noo soo socotaan laakiin markan Gaza aynu eegno Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa duqeymaha inay sii wada ilaa iyo saaki hiirtii wabri meelo kala duwan oo kamid ah Mareykanka Gaza ayaa duqeynta laga soo warinaya waxaana kamid ah meelaha duqeynta la egtay xerada qaxootiga ee Nusrat dhanka waqooyi sidoo kale duqeymo ayaa laga soo warinaya iyadoo sidoo kale la sheegayo in iska horimaadyo laga soo warinayo dhanka Shujaaciya iyo Al-Tufaa halkaasi oo ciidanka Israa'iil lagu galay saacadihii la soo dhaafay qasaarihii ugu dambeeyay militariga Israa'iil soo gaaray 3 askari ayay Israa'iil sheegatay inay kaga dhaawacmeen dagaaladii shalay galinkii dambe ka dhacay Jidda Gaza dhanka gudaha Israa'iil hadii aynu eegno waxa la sheegayaa Israa'iil in kastoo dagaal ay kaga jirto Mareykanka Gaza oo xalayna aan idin soo gudbinay Netanyahu isagoo leh way naga go'an tahay inaan Xamaas